afhayeenka laamaha amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdikaamil Macalin Shukri oo maanta saxaafadda kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay tiro hoobiyaal oo xalay laga maqlayay magaalada caasimadda Muqdisho kuwaas oo argagax geliyay bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho. afhayeenka laamaha amniga Cabdikaamil ayaa waxa uu sheegay inaysan hoobiyaal ahayn wixii xalayta laga maqlay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir balse ay ahaayeen waxyaabo laga sameeyay baaruud kuwaas uu sheegay afhayeenku inaysan waxba yeelaynin dadka balse lagu cabsi gelinayay bulshada. xalay waxaa jirtay magaalada in laga maqlaayay dhawaaqyo dadka cabsi geliyay dhawaqaas oo dadku markay maqlaayeen ay siyaabo fara badan ay u fasirteen dhawaqaasi waxa uu ahaa nabadiidka ayaa waxyaabo baaruud ah oo dadka ku cabsi gelinayaan ayay waxay dhigeen in ka badan ilaa iyo 6 meelood oo magaalada ka mid ah dadka markay maqlaayeen waxay u haysteen inuu yahay dhawaqaasi madaafiici wax la soo tuuraayo laakiin ciidamada ammaanku waxay sameeyeen baaritaano ay sameeyeen oo ay ku xaqiijinayeen waxaas wuxuu ahaa waxay soo ogaadeen inuu ahaa waxaasi baaruudaas oo qarax sameynayso waxna dadka aan gaarsiinaynin isla waqtigii oo xalay ay dhacayeen laamaha ammaanku waxay sameeyeen baaritaano magaalada meelo badan oo kamid ah ayagoo baaraya baabuurta aan isticmaalaysa xataa jidadka oo aan laamiyada aan ahayn baabuur badan ayaa waxaan ku dhahay ayaa la qabtay baaritaano fara badan la mariyay. waxa kale uu sheegay afhayeenka laamaha amniga ee dowladda Soomaaliya in xalay howlgalkii ay sameeyeen ciidamada laamaha ammaanka ay ku soo qabteen gaari kaariba kaas oo ay ku jireen waxyaabaha qarxa isla markaasina ay ka soo qabteen xaafadda General Daawud ee degmada Warta Nabadda sidoo kalena ay gacanta ku soo dhigeen hal shakhsi uu sheegay afhayeenku inuu ku lug lahaa hoobiyaashii xalay laga maqlayay magaalada Muqdisho. waxaa lagu qabtay baabuur kaariba baabuurkaas oo ay saarnaayeen waxyaabaha qarxo laga soo buuxiyay sidaad aragteenba baabuurkaas waxyaabaha saarnaa waxaa ka mid ahaa madaxyada oo suugaha iyo xamahan loo isticmaalo qarax inay sameeyaan hawlgalka xal la sameeyay waxaa si rasmi ah loogu soo qabtay oo asoo gacanta ku jira lagu soo qabtay hal nima waa ninka guriga yaaqshid laga soo qabtay gaar ahaan xaafadda Tokyo. Cabdulqaadir Umar Cabdulla Fiidka Bulsho TV Muqdisho.